ونقدم تكبير عد كمان مغلط تكبير تكبير خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود تكبير تكبير marka qayb waxaad ka tihiin arrin weyn oo caalamul islaami maanta farxad wada ah markaan qaban qaabinaynay iyo hadda dareenku isku mid ma aha markaan qaban qaabinaynay madaafiicda ayaa ku socotay shacbiga Israa'iil Falastiin laakiin xalay xaaladda way isbedeshay waxayna isku bedeshay xabad joojin oo qasab ah oo aan laga barin cadawga sahyuuniyadda ayay say u kala ordaayeen yaa naga joojiyay gaartay markii la joojiyay xalay siqdi dhexe shacbi Falastiin salaatul fajrkii ay soo dhaweeyeen masaajidkooda aadeen masaajid markay ka soo baxeenna ihtifaalaan iyo dabaaldegyo yaani guusha ay gaareen guushaas oo ah yaani in laga hubbadan yahay shaki kuma jiro laakiin ayaguna way ka niyad adag yihiin iraadatu shacb al-Falastini intasarat غزة تنتصر ويقول يستاهل الحمد لله تكبير 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 شعب فلسطين ما كنت بلدغاي ساكا او مغالوينكيس دhan uu ka soo wada baxay waxa aad iyo aad muhiim ah oo guusha ay tahay kala qaybintii la kala qaybinayay inay ka midoobeen oo la kala garan waayay kuwa loo yaqaano ad-daakhil 48 la qabsaday oo loo maleynayay odayaashiina inay waqtigooda u dhamaaday oo dhamaadeen dhalinyaradana la ilowsiyay qadiyadooda laakiin wacdara weyn ayaa waxay dhigeen gudaha dadka ku jira mudaaharaadyo dhalinyaro waxa marka farxad leh 20 jir inta ka yar ayaa hawsha waday marka waa guul hadii dhalinyarada ummad walba dhalinyaradeedu ay qadiyadeeda ay aaminto waa midaas marka shacbiga Falastiin uu duceeyay Ilaahay ducada uu aqbalo dhinaca kale wadankeena Soomaaliyana sidaas la mid aan ugu duceynaynaa waxaad ogtiin maalmahan waxaa jira shirar oo Soomaalida dib u heshiisiintooda in dhibaatada laga baxo in dadka kala baqan ee walaalaha Soomaalida isu doono heshiis in la raadiyo marka halkan waxaan baaq uga diraynaa sidaas la mid ah sidaan uga qiireysanahay qadiyada shacbi Falastiini ayaa waxaan uga qiireysanahay qadiyada shacbi Soomaali iyo iskhilaafsanaanta laakiin maanta dareen waxa ina wada mideeyay dhamaanteen Qudus Masjidul Aqsa oo aqeeda ah waxaan marka ugu yaani shucuurka u muujinayna Masjidul Aqsa aan yaan u garab taaganahay waa aqeeda iyo iimaankaas iyo aqeedadaas ayaa inaga Soomaali hadaan nahayna aan walaalo ku siinahay oo inamal mu'minuuna ikhwa ay tahay marka inaan ka gudubno inagana ayaan ugu gargaari karnaa shacbi Falastiin oo hadda dad qaar waxay dhigi karaan inagaaba kala daadsane maxaan u tari karnaa waa run waxaan u tari karnaa horta koow inaga naftirkeena inaan dib isugu noqono oo aan midnimadeena iyo walaaltinimadeena aan raadino wadankeena inuu nabad noqdo ummadeena inaan isu raadino in la midoobo waxa dhici karta qadiyada Falastiin barakadeeda ducada aan u ducaynayno hamigeena ugu jira daraadeed Ilaahay inuu inoogu fuudeeyo inaga dhexdeena wixii ahaana inuu Ilaahay inaga saaro oo ummad walaalo ah oo heshiisa oo islaamkooda haysata oo quraankooda ku dhaqanta oo shariicada islaamka dabaqda inay halkaas ay noogu noqotaba بداية خير يمنيما maxaa yeelay hadii wax weyn u yimaado aniga ogtiin afmaymadan xikmada ku sheegaa waxa la yiraahdaa wal karaho kooy walis walaabe oo macnaheedu uu yahay wax weyn haduu korkaaga yimaado wixii yar yaraa adiga ka dhaxeeyo meel aan iska dhigaa dina hadda koor saas oo kale walaalo islaaynays oo ku heshiinay isdilaan yaa mid ka mid ah gabadhu dhalaa la soo doontay wuxuu niyo gabadhaas walaalka u dhalay raba wiilkii kaale ila raadi wuu aaday markuu u tagay oo ninkii uu la hadda waan isdagaalayna oo soo socda arku isdiyaaray inuu la dagaalo yuu warniyo dagaal uma socdo ka sheekalan ku haayay maxaad yahaysaa wuxuu nin waxa ii yimid waxaan sunnahay yaqaana laakiin waxa inaga dhaxeeya aan aqoon ayaa ii yimid nin waxaan sunnahay yaqaana macnaheedu inaan wada dhalan uu yaqaana laakiin waxa inaga dhaxeeya inaan colnahay aan ogeynaa ay imaaday oo gabadhaadu wiilkiisa u rabay gabadhaan wada bixinay dhaqanka Soomaaliyeed gabdhuhu nabadda iyo safiiray ka yihiin nigada colaado aan heshiino bas intuu isku duubay waa runta waxa aan sunnahay qofka yaqaan ayaa runta sheegayay waxa inaga dhaxeeyo waxba kama jiro halka aan ku laabno
saas waay marka Falastiin iyo halkaas weyn markaan ka hadlayno wax weyn oo ina mideeyaa imaaday waxaan arkaa islaamka oo salka laga soo jaraayo muslimiinta oo la baabi'inayo halkaas markay joogto inaga oo muslim oo walaalo ah waxaan isu sii jiijiidino oo isu riixino meeshana kuma jiraan meeshaas waxa ku baxaya marka cuqdadii inaga dhexdeena ahayd in halka ku harto ayaan rajaynaynaa caalamul islaamina maanta wuxuu u socdaa inuu midoobo oo qadiyadaas caalamka oo dhan indhahay soo wada jiidatay marka nasri ayaa soo socdee nasrigaas aad qayb ka tihiin waxaa tihiin dalaa'icu nasri dadkii horseedka u ahaa guushaas ay tihiin khayr Allah isiyo waa la iga dambayn doonaa aad iyo aad ka mahad celinayaa qof kasta oo qayb ka ah barnaamijkan ilaahay ajri xasanada ka siiyo ducadii aan akhrinay ilaahay ha u aqbalo shacabka Falastiin shacbigeena Soomaaliyeed ilaahay nabad ha u soo dejiyo ummadeena Allah mideeyo ummadda islaamka Allah mideeyo qofkii xumaan iyo cadaawad inoo hay Allah inaga qabto qofkii khayr iyo wanaag inoo rabana khayrkiisa wanaagiisa Allah ina siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga aqbalo اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم حرر مسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم إن هؤلاء الفلسطينيين مظلومون اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم عليك بالسهاينة الظالمين ومن والاهم يا رب العالمين اللهم ارفع راية الحق يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم وحد كلمتنا اللهم وحد كلمة الصوماليين يا رب العالمين اللهم وحد كلمة الصوماليين يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء فقونا وإنا فقراء فأغننا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين وأخذل من خذل الدين والمسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين iyadoo loo ogyahay ahmiyada uu leeyahay barnaamijka bulshada ay ku xiriirto ee social media iyo arrimaha ku saabsan oo xilligan casriga ah noqday aalad runtii aad iyo aad saameyn u leh ayaa waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan aan la wadaagaynaa inaan u furnay page ku furan magacayga oo la yiraahdo page-ka Sheekh Cabdilxay oo YouTube-ka ah kaas oo la soo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada Jumcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada Muqdisho masaajidka Umar ibn Khattab ka baxda iyo waxyaabaha kale aan isleenahay baahi ayaa markaas ummaddu ay u qabtaa inaan yani aan u soo bandhigno waxa kale oo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad yani isu weydiiyaan oo ana isu weydiiyaan inaan fursad u siino Facebook inaan isbuuciiba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan isleenahay muhiim ay bulshada u yihiin ayagoo wixii su'aalo ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan kadibna aan jawaabta usoo dhigi doono page-ka YouTube-ka aan ku leeyahay page-ka Sheekh Cabdilxay marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada kolba barnaamijka qiimo leh meelahaas lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad yani kaga falcelisaan hadba markii duruufta iyo mowduucyada halkaasi ka jira ee la maraayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada page-kaas insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh